isku soo noqod wanaagsan saaxiibayaal. Waxaan rajaynayaa inay maalintiina idin fiicantay. Maanta waxaan ii wadaa filim aad u xiiso badan kaasoo lagu magacaabo Saimbal. Si aan muuqaaladiina idinku soo badiyo, aan arko faaladiina muuqaalkana like saar. Haddii channelka ku cusubtayna nagu soo biir. Filimkan wuxuu ku bilaabanayaa nin Shiinees ah kaasoo jiifa qol aan lahayn meel yar oo daloosha. Kadib wuxuu soo dhawaadaa derbiga. Markuu soo dhawaado waxaa soo baxa button. kadib wuxuu taabtaa butankii giyaarka waxaa ka soo baxaa butono badan kaasoo markasta uu taabto hal buton waxaa qolka lagu soo dhex tuurayaa hal shay taasoo ogaanayo isagii inaguba kadib mar waxaa lagu soo darayaa burushka lagu cadaydo markaana haan waxaanu ogaanayaa in buton kasta uu taagan yahay hal shay kadib butonkan ayuu taabanayaa waxaana soo baxaya gaadhiga yar waxaanu uga dhacayaa lugta isaguna wuxuu biloobayaa inuu qayliyo waxaana loo soo tuurayaa shayaal kala duwan oo badan hal mar isagoo quustay waxuu derbiga ku tuurayaa kubad waxaana loo soo tuurayaa cunto aad ayuu u farxayaa isagoo dhanna wuxuu u dhiman rabay gaajo isagoo cuni rabaa ayuu wuxuu u baahdaa sushidii bahashan lagu cuni lahaa isaguna badhinka ayuu markala taabanayaa waxaana loo soo tuurayaa 3 xabbo sushiya laakiin lama socoto bahashan lagu cuni lahaa sushida kaliya ayuu cunayaa waanu ka dhergayaa kadib wuxuu isdhahayaa butonka la riix waanu riixayaa waxaana loo soo tuurayaa bahashu ku cuni lahaa waanu xanaaqayaa saacadi kadib wuxuu damcayaa inuu taabto badhan ku yaala dhulka markuu riixo waxaa furmaya albaab laakiin farxad darteed waxuu iloobayaa butonkii uu taabtay waxaanu ku nasiibinayaa butono kale kadib wuxuu taabanayaa butonkan waxaana meesha ka soo baxaya nin afrikaan ah waxaanu ka dhex baxayaa derbiga kale kadib wuxuu taabanayaa butonka kale waxaana ku soo daayaa roob ugu dambeyn wuxuu helayaa butonkii uu raadinaya albaabka kadib wuu taabanayaa albaabka ayaana furmaya kadib wuxuu u ordaya dhinaca albaabka laakiin wuu isxidhayaa kadib mar labaad ayuu isku dayayaa waanu isxidhayaa mar kale kadib wuxuu ogaanayaa butonka intuu farta ku hayo keliya inuu furnaanayo albaabku kadib wuxuu isticmaalayaa fikrado badan oo butonkan hayn kara ilaa uu ka gaadhayo albaabka laakiin iskuday kasta wuu ku khasaarayaa ugu dambeyn wuxuu ogaanayaa inuu butonkan hayn karo shay culus oo keliya waxaanu soo qaadanayaa haantan waxaanu dul saarayaa butonkii kadib iyaduna way xejin kar waayeysaa kadib fikrada ayaa ku soo dhacaysa kaasoo ah inuu haanta buuxiyo kadib haanta wuxuu la hoos tagaa butonka ay ka soo dhacaysay sushiidu waana butonkii uu ka dhex garanayo butonada kale intaas kadib haanta wuxuu ku buuxiyaa sushi waanu qaadi kari waayaa xitaa wuxuu awoodi waayaa inuu ka soo saaro si ay haantu culayska ugu yaraado kadib wuu waayay xal aan ahayn inuu milmil uga soo saaro daal badan kadib wuxuu ka guulaystay inuu haanta culayska ka dhimo kadib haanta ayuu soo qaadayaa markuu butonkii dul yimaadana waxaa uu garan waayaa butonkii albaabku kuu ahaa waxaanu riixayaa butonadii mid ka mid ah waxaana soo baxaya ninkii afrikaanka ah waxaana si khaldan cad uga dhacdaa haantii waanay kala jabaysaa isaguna aad buu niyad jabayaa markuu arkay kadib sushida ayuu ku dhoobayaa butonka korkiisii laakiin kasoo dhex baxaya butonkii kadib wuxuu ku fikirayaa inuu caag saaro oo uu ku koolayo taasina way socon waayeysaa kadib waxaanu aragnaa markuu jiifsan rabo inuu cunaayo kiniin xanuun baabiya kaasoo uu dhaawac mar kasta ka soo gaadhayay albaabka markastuu albaabka sii xidhmayaba waxaa soo gaadhayay dhaawac kadib wuu jiifsadaa waanu soo kacayaa ugu dambayn waxaanu doonayaa inuu cadaydo waxaanu raadinayaa biyo kadib wuu boodayaa isagoona doonaya butonkii biyaha kadib wuxuu taabanaya buton aan ahayn kii biyaha waxaana loo soo tuurayaa xadhig meeshanna wuxuu ka helaa fikrad cusub taasoo ah inuu butonka lugtiisa ku taabto kadibna uu xadhiga raaco waanu ku guulaystaa ugu dambayn laakiin nasiib daro wuxuu arkayaa inuu albaab kale ku dhex yaalo kaasoo u baahan fure waxaanu ku soo laabtaa qolka isagoo aad u xanaaqsan xanaaq dartina wuxuu laagayaa derbiga waxaanu fura ka soo dhex muuqda qolka kadib wuu qarsoomayaa sababtoo ah butonkii ayaa ku soo laabtay booskiisii waana sidii kii albaabka oo kale markan sidii hore way ka adag tahay waayo waa inuu helaa wakhti uu albaabka uu furan yahay furahuna uu muuqdo kadib wuu isku dayayaa waanu gaari waayaa furaha waxaanu ku dhacayaa dhulka waxuu arkayaa bahashan waxaanu ka dhex helayaa fikrad waxaanu soo raacayaa xadhiga waxaanu taabtaa butonkii furaha furihii ayaanu soo qaatay waxaanu sii taabanayaa butonkii albaabka rafaada dheer uu ku guulaystay waxaanu gelinayaa furaha albaabka waanu furmi waayaa waxaanu kor ka arkaynaa innagiyo isaguba inuu qof ku xidhan yahay xagga sare ee albaabka kaasoo u baahan 3 nambar si uu furmo kadib albaabka waa sixidhi rabaa ayuu ka soo baxaa kaasoo ka soo gaari doonaa dhaawacii ku dhici jiray awalba waanu xanaaqayaa bahashii butonka furaha uu ku taabanayay ayuu tuurayaa isagoo xanaaqsan waxaanay ku dhacdaa butonkii ninkii afrikaanka waanu soo baxayaa waxaanu arkaa in 3 nambar ee furaya qofka uu ku qoran yahay ninkan wejigiisa intaas kadib waxaanu aragnaa 3 nambar in mid kastaba mar uu gelinayo sababtoo ah wakhtigoo ku yar uma saamaxaysa inuu wada geliyo sidaas ayaanu ku gelinayaa 3 nambar ugu dambayntii wax furmaya albaabkii dambe kii horena waa isxidhayaa isaguna meeshan cidhiidhiga ayuu gelayaa mana awoodo albaabka inuu furo iyo inuu xidhaba isaguna aad ayuu niyad jabayaa waanu oynayaa waxaanu soo xasuustaa nimcooyinkii uu haystay iyo cuntooyinkii loo keeni jiray iyo meeshii waasac ahayd ee si kasta ugu soconayey ee uu cabbayey uu cunayey nimcadu markaan haysanno ma dareenno laakiin markaanaynu weyno
ayaanu dareennaa kadib wuxuu arkayaa inay hawa ka soo geliso dhinaca midig markii uu riixayna waxay noqonaysaa albaab waxaanu uga baxaya orod siduu u ordayay wuxuu dareemayaa inaanay tani dhimaanayn laakiin iska sii ordaya waxaanu arkayaa albaab kadib uu gelaya kadib waxaan aragnaa inuu yeeshay timayntiisii ka dhaadheer timaha xitaa kalarkooda way isbedelayaan dharkiisuna way isbedeleen qolkan wuu ka duwan yahay qolkii hore markasta uu taabto botan ka midna waxaa adduunka ka dhacaya arrin la yaab leh isaguna ma oga waxaa dhacaya filimkan wuxuu isku rogaa mexico qoyskan waxay ka walwalsan yihiin wiilkooga oo ciyaaraya musaaraco hooyadiisna abiyi waxay ku tiraahdaa wiilka ula ciyaar rabo wuu ka yaryahay waanu ka awood badan yahay odayganna wuxuu ku dhahayaa khibradda ka muhiimsan waxaanu aadayaa meeshuu musaaracada ku dheeli lahaa si isku diyaariya una u labisto kadib waxaan arkaynaa ninka ciyaaraya musaaracada wiilkiisa oo la dhaho antoni asxaabtiisa fasalka la dhigataa ayaa foodaynaysaa waxaanay ku yidhaahdaan adiga waxaa tahay nin guuldaro badan aabbahaana u guuldaraysanaya isla markaa walaasha ayaa imaanaysa iskuulka waanay kaxaynaysaa isagu si uu soo daawado ciyaarta waa bishii dheelayo intaas kadib waxay soo gaadheen garoonka waxayna fadhiisteen kuraasta ugu horraysa welina may bilowmin ciyaartu kadib waxaa soo gelaya kooxdii ugu horraysay kuwaasoo ah tiimka ka soo horjeeda antonio aabihii iyagoo salaamaya taageerayaashooda kadib waxaa soo gelaya tiimka antonio aabihii ciyaartuna way bilowmaysaa iyadoo si xamaasad leh ku biloomata waxaana garoonka ku jiray ninka kale la jiray antonio aabihiis kadib waa lagu goobtaa waxaana lagu dilaa 2 nin antonio aabihii ma soo geli karo ilaa uu ka taabto saaxiibkii kadib ninkan wuxuu helayaa fursaduu labada isaga dhicin karo waanu samaynayaa oo uu ku guulaystaa waxaanu gacanta ka taabtaa antonio aabihii kadib ciyaarta waxaa soo gelaya antonio aabihii isla markiiba antonio aabihii ayay qabtaan waxaanay rabaan inay ka jaraan kursigan intaas kadib waxaa soo muuqda ninkii qolka ku jiray waxaanu taabanayaa botankan derbiga ku yaala isla markaaba antonio aabihiis qoortiisu way dheeraataa waxaanay dilaysaa ninkii ka soo horjeeday sidoo kale waxay ku dhuftaan ninkii celinayay ninkii qolka ku jiray ayaa arkaya markuu botanka taabto inaanu waxba dhaacin waanuu yaaban yahay kadib waxaan aragnaa antonio aabihii inuu madaxa macal ka jarayo ninkii dhexdhexaadinayey cunugii yaraa xitaa lamuu dhaafin xitaa heer uu gaadhay gambaleelkii macal muu dhaafin sababta waxaasina u dhacayaan waa ninka qolka ku jiray oo ku celinayay botankii isaga wuu yaaban yahay natiijan la'aanta ka dhalanaysa markuu botanka riixo intaas kadib wuxuu taabtaa botan kale boombalahan ayaa afka wuxuu ka sii deynayaa kii labaad markuu taabtay ninkan ayaa ayadiisii bilaabaysaa inay qayliyaan kadib wuxuu arkayaa iftiin ka imaanaya xagga sare waxaanu ogaanayaa qolkan inaanu lahayn saqaf sare waxaanu biloobayaa inuu botanada ka dhigto jaranjar markastuu botan taabtana dhulka waxaa ka dhacayay dhacdo la yaab leh xayawaan ayaa dhimanayey ubax ayaa furmayey maroodi ayaa dhimanayey cirbixineedi ayaa dhimanayey markastuu kor aado dhacdo ayaa dhacaysay dhibaataduna waxay gaadhaysay bilaadanka iyo xayawaanka waxuu socdaba waxaanu aragnaa inuu garhkiisi weynaaday waxa kaloona aragnaa inuu hadda ka maarmay meel uu qabsado waxaanuu duulayaabaa sidii shimbiraha camal oo kale yacnii hawada ayuu iska heehaabaya isagoo meelna qabsanin weliba isagoo u socdaa tabtii uu botanada ugu soo fuulayey wuxuu ugu dambayn soo galay qolkii ugu dambeeyey waxaana gadaashiisa ka muuqda maabka dunida qolkanna wuxuu leeyahay keliyata hal botan filimkeenina wuxuu ku soo dhammaanayaa xaggaas fadlan saar muuqaalka like haddaan channelku cusubtina nagu soo biir wassalaamu calaykum